muddo 10 sano ayaa dalka Netherland ku faani jiray inay yihiin dadka ugu dhaadheer dunida. Tan iyo 1958 dadka Dutch-ka ahi way ka dheeraayeen dadka dalalka kale sida ay tibaaxayso xogta taalla xarunta dhexe ee tirakoobka dalkaasi. Hase yeeshee cilmi baaris dhawaan la sameeyay ayaa tilmaamaysa in jiilka u dambeeyay dhererkoodu ismay marka la barbar dhigo jiilkii ka horreeyay celcelis ahaan 1 sentimitir dhanka ragga, halka dumarkana farqigu yahay 1.3 sentimitir. inkastoo arrimo badani keenaan hoos u dhaca dhererka dadka sida la sheegay, haddana ma jirto sabab kaliya oo ay dhammaan khubaradu ku wada qanci karaan. Koriinka dhererku wuxuu bilaabmay qiyaastii qarni ka hor sida lagu xusay website-ka xarunta dhexe ee tirakoobka dalkaas. Xaruntu waxay samaysaa daraasado dhanka caafimaadka 4 sanaba mar oo ay ka mid tahay in la cabiro dhererka dadka. Sanadkii 2020 ayaa rag 19 jir ah oo Dutch ah waxay celcelis ahaan dhererkoodu noqday 182.9 sentimitir, halka haweenka ay isku da'da yihiinna uu noqday 169.3 sentimitir. Arrintani waxay ahayd mid si joogto ah u socotay oo dhererka dadkaasi isku dhimayay celcelis ahaan 8.3 sentimitir ayaa u kordhay dhererkii raggii dhashay sanadkii 1980 marka la barbar dhigo kuwa dhashay sanadkii 1930. Sidoo kale haweenka ayaa dhererkoodu kordhay 5.3 sentimitir muddadii intaasi u dhaxaysay. waxaanu cabnaa biyo badan ayuu yiri Ruben van Gaalen oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta tirakoobka, sidoo kalena ah professor cilmiga bulshada ka dhigay jaamacadda Amsterdam oo la hadlay warbaahinta. Waxaanu sidaasi ku macneeyay waxa sababta waa dhererka dadkaasi, laakiin wuxuu sidoo kale xusay inay jiraan dhowr aragtiyood waxa laga yaabaa inay sabab u tahay tayada heerka nolosha. Haddii aynu eegno kobaca aadanaha ee wadamada oo dhan, Netherlands-ku xagga hore ayay kaga jirtaa. Kuwa kale sida Denmark ayaa arrintaasi la wadaago oo iyaguna sidoo kale ah. Sidoo kale wuxuu tilmaamay arrinta horumarinta dabiiciga. Dhan marka laga eego qofka dheer waxa dabeecaddu u sahlaysaa inuu meel dheer arki karo. Waxa sidoo kale jirtay daraasado lagu sameeyay xiriirka ka dhexeeya dhererka iyo dakhliga. Qofka uu ka dheer yahay ayaa lacagta soo gashaa ka badan tahay qofka kale. Haddii aad dheer tahay waxa ka muuqanaya qof karti dheeraad leh, waxana suurtagal ah in ay dadku ku soo joogsadaan oo aad hesho saameyn badan oo bulsho, ayay tiri. Waxaana iyadoo sii faahfaahinaysa sii raacisay guud ahaan dumarku waxay u dabacsay ragga ka dhaadheer, marka ragga dhaadheer waxa u sahlanaanaysa inay dumar badan kala xushaan. waxa muuqata in dadkii Dutch-ka ahaa ee dheeraan jiray ay hagaaseen sida ku cad xogta laga helay xarunta dhexe ee tirakoobka. Waxaana sidoo kale lagu ogaaday cabir laga qaaday 719,000 oo qof oo da'doodu u dhaxayso 19 ilaa 60 jir. Natiijadani waxay muujisay in ragga dhashay bilowgii qarnigan cusub ee da'doodu 19 jirka tahay ay celcelis ahaan 1 sentimitir ka gaaban yihiin kuwii dhashay 1980-kii, halka dumarkuna ay gaabteen celcelis ahaan 1.4 sentimitir. Khubaradu dhowr siyaabood ay arrintani ku macneeyeen, waxaana kamid ah soo galeetiga iyo isbedelka cuntada iyo saameynta ragaadka dhaqaalaha. waxaana kamid ah dadka soo galeetiga ah iyo isbedelka cuntada iyo waliba sidoo kale saameynta uu ku yeeshay ragaadka dhaqaaluhu. soo galeetigu waa sababaha midkood. Haddii aanu nahay dadka dunida ugu dheer, guud ahaan dadka soo galeetiga ahina waa dad gaagaaban. Marka hidde-sidayaashooda waxa ku jira isirkoodii ahaa inay gaagaaban yihiin, marka kolka ay isguursadaan dadka wadankan u dhashay isbedel baa dhacaya, ayuu yiri sarkaal ka tirsan xarunta tirakoobka. laakiin hagaasku waxa uu sidoo kale ka muuqdaa jiilka labadooda waalidba ay ku dhasheen Netherland. Sidoo kale waxa arrintaasi ka muuqata jiilasha ay afartooda awooba ku dhasheen dalka. waxa kale oo intaasi dheer sida lagu sheegay website-ka xarunta tirakoobka in ragga dad aan soo galeeti ahayn ka isirnayn aan qudhooduba dheerayn, halka dumarka aan dadka soo galeetiga ka isirnayn iyagna ay ka muuqato in dhererkoodu isdhibay xilliyadani dambe.